jacaylku wuxuu u baahan yahay taabasho, jacaylku wuxuu u baahan yahay dhunkasho, jacaylku wuxuu u baahan yahay dareen, jacaylku wuxuu u baahan yahay macaan, jacaylku wuxuu u baahan yahay hadal wanaagsan, jacaylku wuxuu u baahan yahay naxariis badan, jacaylku wuxuu u baahan yahay xataa qofka wax jecel cunto wanaagsan xataa sababtoo ah qofka badanaa jacaylka way ka qayb qaadataa sababtoo waliba ragga waliba aad bay cuntada u jecel yihiin marka dumarku sida ay marka guurka kadib ay u kala cunto wanaagsan yihiin ayay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا سو دhowaada meel kasta joogtaan waa idin salaamayaa habeen wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan waqtigeedii inta ay wanaagsan walaalkii Mohamed Saalax Maarre halka aad igala socotaana waa Facebook-gayga Maarre page iyo YouTube-kayga Mohamed Maarre in badan baynu isweynay sanadkii 2019 oo dhan iyo 20kii oo dhan wax muuqaal ma soo duubin haddaan soo duubin way yaraayeen ama muuqaalo ay khasab igu ahayd inaan duubo bay ahaayeen ujeedo kale ma ahayn waa yara mashquulay waxaana insha Allah taala qorshayaashii igu jirtay in muuqaaladii hore wax ka duwan mowduucyadii hore wax ka duwan aan maartay idin soo gudbiyo marka caawa mowduucan kulay hordhacun baad maartay aan idin ku soo galiyay 2020 haddii Allah awoodal u qadaro insha Allah muuqaaladeena waa la wajibaari doona iyagoo sidii hore ka maartay ka tayo qurux badan waqti badan laga soo shaqeeyay waqti badan la soo diyaariyay yaan idinku soo gudbin doona aan meelahan idinku soo gudbin doona marka ugu horeyn muuqaalkan hadduu soo gaaro fadlan like saar lana wadaag saaxiibadaada in yar muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo macnaha jacaylku uu leeyahay sidii mowduucyada hore aan maaragtay aan ugu wada xiriiri jirnay oo kale jacaylka marka wixii fikirkaygu ma ka soo gudbinayaa way khaldanaan karaan way nasaxsanaan karaan khasab maaha inaad qaadato khasab maaha inaad iska diiso laakiin hadduu ku anfaco kugu lacag la'aan waa qaadan kartaa taladaas hadduu ku anfici waayana waa kugu lacag la'aan iska dhaafi kartaa idaasna kaftamaya saaxiibayaal jacaylka shayga la yiraahdo waa awood qalbiga jiidata inta badan dadku waxa leeyahay laba qaybood qof qalbigu ka socda qofna maskaxdu ka socda qofka maskaxda ka socda marka oo dadka aynu u naqaano hebel uu aqli badan yahay hebel uu sidan u yahay hebel uu waxyaabaha noocaas uu maskax badan yahay aynu ku dhiraahno dadka badana qalbiga ka socdana waa dadka u nugul in lagu ciyaaro waa dadka u nugul in jacayladooda ay guuleystaan waa dadka u nugul inay farxad helaan waa dadka u nugul inay murugo helaan inta sababtan ku sheegay waxay tahay sababtan saa u leeyahay waxay tahay qofka badana qalbiga ka socda hadduu wax jeclaado oo uu tusaale ahaan ay gabar tahay wiil jeclaato ama uu wiil yahay oo gabar jeclaado qofkan wuu iswada siiyaa isagoon xataa reer lahayn yaa because jacaylka dhabta ay wuxuu yimaadaa guurka kadib uu yimaadaa laakiin kan ka horeeya isbarashada ah muhiimadiisu ay tahay isbarashada qofka qalbiga ka socda marka uu saasoo kale uu qof xiriir la sameeyo ama qof ay isjeclaadaan badanaa wuxuu u nugul yahay inuu halis ku dhaco markaan ku leeyahay inuu halis ku dhaco waxay tahay haddii qofka uu jecel yahay garashadiisu ay wanaagsan tahay qofkaas wuu guuleystaa oo qof successful uu noqdaa jacaylkiisu wuu guuleystaa haddii laakiin qofka uu jecel yahay qofkaas uu noqdo qof aan wax badan ka aqoonin qiimaha jacaylku leeyahay iyo nolosha iyo waxaasoo dhan wuxuu noqdaa dadka badanaa lagu ciyaaro in meelaha ka aragno isagoo ama calacalaya ama oynaya ama noloshii ka dhacay oo siyaabo kale oo maaragtay kala duwan aan u aragno iyagoo maartay dhibaato jacayl la kulmaya marka badanaa dadka ila soo hadla dadkaas u badan yihiin talada marka idin soo jeedinay waxay tahay jacaylku walaalayaal waa guurka ka hor kan ka horeeya jacaylka guurka ka horeeya isbarasha la yiraahdaa waa ina qofkii baratay dabeecadiisa hab dhaqankiisa noloshiisa waxa soo dhan inaad barato kadibna aad ku dabaqdo noloshaada guurka kadib jacaylku wuxuu u baahan yahay taabasho jacaylku wuxuu u baahan yahay dhunkasho jacaylku wuxuu u baahan yahay dareen jacaylku wuxuu u baahan yahay macaan jacaylku wuxuu u baahan yahay hadal wanaagsan jacaylku wuxuu u baahan yahay naxariis badan jacaylku wuxuu u baahan yahay xataa qofka wax jecel cunto wanaagsan xataa sababtoo qofka badanaa jacaylka way ka qayb qaadataa sababtoo waliba ragga waliba aad bay cuntada u jecel yihiin marka dumarku sida ay marka guurka kadib ay u kala cunto wanaagsan yihiin ayay maartay loo sii maartay kale marka waxaasoo dhan waxay yimaadaan guurka kadib lama taaban karo jacaylka guurka ka hor sababtoo ah qofkii ajnabiga ka yahay lama dhunkan karo lama dareemi karo lama dhawaan karo waxaasoo dhan ayaa meesha ka baxaya laakiin guurka ka hor
واسبرشو وانا قف كان برتو دبعديسي habdhaqankiisii noloshiisii waxa soo dhan aad barato si aad ugu dabaqdo guurka kadib marka waxaan idin kula talinayaa oo taladu ay tahay in badan ay soo weydiiyaan walaalaha ku xidhan ama YouTube-kayga ama Instagram-kayga ama muxuu ahaa Facebook page-kayga waxay tahay qof baan jeclaa xiriir baan lahayn uu igu ciyaaray kama samri karo kama tii karo iskama goyn karo ma ilaawi karo kama fogaan karo waxa soo dhan maxaan sameeyaa marka muuqaalo horena waa ka sameeyay dabcan intiina aragtay intaan aragna YouTube-ka oo kale waad ka heli kartaan Mohamed Maarre igu qoran Facebook page-kayga waa ka heli kartaan Maarre igu qoran Instagram-kayga Maarre igu qoran meelahaas oo ka heli kartaan marka badana waxaan kula taliyaa jacaylku guurka kadib war guurka ka hor hay soo dhiibinina oo maaragtay qofka ha oranina way kana iho waxa rabto samay waxa rabto yeel waxa rabto qabo waxa rabto maaragtay fal waxa rabto xumay waxa rabto hagaaji ma ahan jacaylka waxa la yiraahdaa waxa qofka sharaftiisa kor u qaada qofkana jeceshahay hadduu jecel yahay wax kasto sharaftaada kor u qaadaya kaasoo jacaylka dhabtaa la yiraahdaa jacaylku ma aha mana noqdo in qofka qiimihiisa hoos loo rido in qofnimadiisa hoos loo rido in sharaftiisa hoos loo rido in karaamadiisa hoos loo rido waxa soo dhan qofkii ha qaadanin wax qiimahaaga hoos u dhigay ha qaadanin wax sharaftaada hoos u dhigay ha qaadanin wax magacaaga hoos u dhigay ha qaadan wax familygaaga iyo dadnimadaada hoos u dhigay ha qaadan wixii kor u qaadaya oo qofkan kale uu kugula dhaqmo baa jacayl la yiraahdaa marka waxaan idin kula talinayaa dadka xiriidhada leh jacayl lama oran karo dadka xiriidhada leh iska ilaaliya qofka inaad dhahdaan hoo waxa rabta sameey waxa rabta yeel waxa rabta qabo waxa rabta xumay iska ilaali isna maaragtay xakamay marka aad qof xiriir la leedahay oo xumaanaya ka dhicin wanaag mooyaane qofkan wanaagiisu baro si aad noloshaada dambe ugu dabaqdo marka waa mahadsantiin saaxiibayaal waxaan balan insha Allah taala sanadkan bilaabmay iyo muuqaalo cusub tayale isdaba joog ah haddii Allah awood la qadaro page-ka iyo YouTube-ka iyo dhamaanteed aan maartay si toos aan maartay idin kula wadaagi doono haddii Allah awood leeyahay ma mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh